kulan haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena gaarka ah ee qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya runtii barnaamijkeena maanta aad ayuu xiiso u leeyahay walibana waa karkar oo xaaladda bariga dhexe meel xasaasi ah ayay taagan tahay haddaba maxaad kala socotaa maxaase ka soo cusboonaaday dagaalkii laba geesoodka aan ku ogeyn Iran iyo Mareykanka mar kale waxa ku soo biiray Taiwan iyo waliba sidoo kale Pakistan oo iyana u muuqato waqtigan in dhankeeda dowladda military ay sameynayso Taiwan iyo waliba sidoo kale Tel Aviv ayaa afar geesood ka dhigay dagaalkii Iran iyo Mareykanka u dhaxeeyay wada hadaladii lagu ballansanaa Iran iyo waliba sidoo kale Mareykanka ee qorshu ahaa inuu ka dhaco dalkaasi Geneva ee Switzerland xagee ayuu markaasi maraya maxaase ka soo kordhay Iran gebi ahaanba ma iska diiday wada hadalada ay la gali lahayd Mareykanka ama Trump iyo xulafadiisa sidoo kale waxaan ku qaadal dhigi doonaa Ethiopia waxaa gacanta lagu dhigay nin si weyn markaasi loogu shakiyay kaameradana soo qabatay calankii Somaliland meel aan sidaas ugu fogeyn golaha nabadda midowga Afrika dhawaana Soomaaliya qayb ay kaga noqotay xubin weyn ay kaga noqotay markaas lagu soo eedeeyay ayaa gacanta lagu dhigay haddaba Somaliland talaabada ninkaasi qaaday door intee ayay ku leedahay ma Somaliland cadaadiskeeda ka dhankay aqoonsiga Israel ay ka heshay bay rabtaa inay dunida meel kaste ay isku riixdo si ay u hesho aqoonsi buuxa qubanaheena ayaan ku qaadal dhigi doonaa waxaan sidoo kale qubanaheena diiradaan ku saari doonaa ugu yaraan 9 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo markaasi laga fuliyay waqooyiga ee koonfurta Gaza haddaba maxay tahay duqeymahan joogtada ah ee aan kala go'o lahayn dhinaca kale ciidamada Syria waxa ay sheegeen in ay la wareegeen saldhigii military ee shadiid lagu magacaabo jiray waqooyiga bari Syria kadib markii ay kaashadeen Mareykanka haddaba Mareykanka mucjiso ayuu noqday meel kasta lug ayaa ugu jirta oo walibana dagaalkiisa hal meel kaliya kuma koobna xitaa Soomaaliya fargelin xoogan ayuu ku hayaa Syria talaabada waqtigan ay u qaaday in saldhigaasi gacanta ku dhigto door intee ayay ka geysatay qubanaheena ayaa ku qaadal dhigi doona qodobadaasi waliba wixii kale in nagu soo kordha markuu ugu horeyso waxaan idinka dalbanaynaa inaad muuqaalka noo like gareedaan si meel dheer aan u gaarno channelkan aad ku soo biirtaan si aynan idin seegin wararka xiisaha badan ee bariga dhexe Soomaaliya iyo waliba sidoo kale dunida inteedii oo dhan aan ku bilaabay waa taariikhdu ay ku astaysan tahay 15 bisha 2026 barnaamijkeena xiise gaar ah ayuu leeyahay san hore badan kugu sheegay dagaalka afar geesoodka ah ee u dhaxeeya markan horaantiisan ahaa laba geesood oo Mareykanka iyo Iran kaliya uu ka dhaxeeyay laakiin markan waa isbedelay oo waa uu ballaartay waxaana ku soo biiray markan Taiwan iyo waliba Tel Aviv haddaba kulamadii qarsoodida ahaa ee Tel Aviv iyo waliba sidoo kale Mareykanku ama ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo waliba Mareykanka oo Donald Trump 3 saacadood u socday oo la tilmaamay waqtigan in isqabqabsi aad u xoogan ka soo dhaxbaxay iyo waliba isku soo fahmi waayeen arrintii sirta ahayd ee uu waday Israel ama ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu haddaba madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Trump muxuu markaasi ugu carooday saaxiibkiisi dhow oo walibana dhinaca diblomaasiyadda sida weyn ugu wada shaqeyn jireen ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa la warinayaa in talaabada waqtigan labadoodaba ay isku qaadeen ay tahay mid markaasi kala fogaansho xoog leh u keeni karto inkastoo wali ay saaxiibo ay yihiin laakiin waxa inta badan la tilmaamayaa in ay isku fahmi laayihiin arrimaha la xiriira bariga dhexe oo Israel ama waqtigan talaabadan ay u qaaday ay rabto ay tahay in dagaalka socda qayb ay kaga noqoto si hubka ama nuclearka ay leedahay ay ugu tijaabiso wadamada qayb ay ka tahay Turkiga xilli dhawaan Turkigu si weyn markaasi Soomaaliya u soo gaarsinayay diyaaradaha dagaal kuwooda ridada dheer iyo waliba sidoo kale maraakiibta dagaal haddaba Trump iyo waliba saaxiibkiisa dhow ee Benjamin Netanyahu ma noqon doonaan kuwa iyagana xulufaysiga colaadeed dhaxdooda ka qarxada si ay saameyn ugu yeelato iyadoo la warinayo waqtigan in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu si weyn markaasi ugu carooday talaabo markaasi uu qaaday ra'iisul wasaaraha ee dalkaasi walow inta badan la tilmaamaya in wali aynan xiisadooda cirka isku soo shireerin waxaa sidoo kale dagaalkii aan ku ogeyn Iran iyo Mareykankana laba geesood kale ka dhigay Tel Aviv san hore badan kugu sheegay iyo waliba sidoo kale Taiwan oo ah jasiirad yar oo ka go'aysa Shiinaha haddaba
Taiwan waxay ka digaysaa tallaabada loo qaadayo Iran haddii xulufaysiga siyaasadeed ee bariga dhexe uu abuurmo waxa ay tilmaantay in saameynteeda ay ku yeelan karto ganacsiyada kala duwan iyadoo halkaasi ay ku leedahay mana jirto ayay tiri tallaabo aan ugu leexleexan doono haddii Mareykanku uu bilaabo duqeymo ka dhanaya maraakiibta dagaal ee uu isaga sida weyn ugu qulqulinayo lagumana fiirsan karo waa la iska difaacaya ayay tiri haddaba Tel Aviv ayaa ku soo biirtay waxay tiri jawaabta uu bixin doono Taiwan mid la mid ah ayaan inaguna bixin doonaa Mareykanka iyo Iranna xulufaysigooda siyaasadeed hoos ayay ka wadaan kaaga sii daran waxaa si weyn u dirtay Iran oo waliba si weyn ugu shaqeeyay in maraakiibta waliba kuwa dagaalka ee quusa biyaha hoostooda wax ka tuura ayay markaan dirtay si markaas ay u burburiso maraakiibta uu soo diray Mareykanka mana jirto ilaa hadda talaabo loo qaaday walow la warinaya in dhammaantoodba ay si weyn ugu fogan yihiin waan arki doonaa wixii kale oo ka soo kordha halkan ay kugu la wadaagi doonaa markan haddii aan fiirino dalkaasi Ethiopia waxa lagu xiray rag soo qabatay kaamirada xilli halkaasi lagu arkay meel aan sidaas ugu fogeyn xarunta aqalka nabadda golaha midowga Afrika oo dhawaan markaasi Soomaaliya ku biirtay meel aan sidaas ugu fogeyn caalamka Somaliland ayaa shakhsi ka soo agtaagay iyadoona la tilmaamaya in si weyn markaasi ugu shaqeeyeen mas'uuliyiinta Somaliland oo waliba lacag ama qarash ay ku bixiyeen si calanka halkaasi loo geeyo isku dayga Somaliland ayaa u muuqata waqtigan in loolankeeda iyana dhankeeda ka wado si ay u hesho aqoonsi buuxo oo kaga filan midka Israel kaliya hadda ay ku dhagan tahay oo dunida kale oo dhani ay ka aamusan tahay waxa inta badan la sheegayaa in dadkaasi lagu arkay qaybta kaamirada CCTV-da taasi oo keentay in gabi ahaan markaasi xabsiga loo taxaawasay baaritaan loogu sameeyo mana jirto ilaa hadda wali wax war cad oo ka soo baxay inkastoo Somaliland la sheegaya in ay ka wada aamuseen arintaas waan isla eegi doonaa wixii kale oo ka soo kordhay insha Allah markana haddii aan fiirino ciidanka Syria ayaa sheegay in ay la wareegeen saldhigii military ee shadiid ee waqooyiga bari Syria kadib markii ay kaashadeen Mareykanka sida uu ku warbixiyay wakaalada wararka ee dawladda Syria talaabadan ayaa untimi kadib markii uu Mareykanku uu ka baxay saldhigii istiraatiijiyada ahaa ee Al-Tanf taasi oo qayb ka ahayd heshiisyada midowga Washington ee dhexdhexaadinaysay si markaasi loogu dhaxdaro xoogaga Kurdishka ee markaasi hogaamiye furinta ama furitaanka difaaca Syria waxaana sidoo kale ay sheegeen in dhawaan ay baahin doonaan maqaal iyo waliba sawirro ay ku tilmaameen in gebiyaha markaasi laga soo saaray halkaasi mana jirto ilaa hadda wali warcad kale oo ka soo baxay wixii ka soo kordhana channelkeena Shariif Show ayaad kala socon doontaa waad nagu mahadsantiin ilaa dhamaadkan haddaad nala soo gaarteen channelka cimaamada lagu tuuro oo like meel dheer ayay gaarsiinaysaa subscribe-na adiga kaliya un baa naga dhiman mahadsanidin